meeshaan waxaa yaal dastuurka beelgaarka ah oo dhamaystir u baahan horta dastuur intuu ka bilowdo carte keen hore haddaa xasuustii lixda ka ahayd kacaanka wuu laabay labada waraaqana ku xukumaya awoodaa jirtay markii dambena waxaa laga soo qaadanaya mar walba kii lixda ka ah qodobka loo baahan yahay markaasaa loo xeynaya dastuur la qoro oo lagu heshiiyo wuxuu ka bilowday dowladda carte qaatidii waa joogtaa waxay idin la sii wado haddana markaa dib bagaati la tegay waxaa la soo qoray axdiga kumeelgaarka ah oo isaga laga sii sameeyey dastuurkan waa fahmi kartaysi wax dad ay qorayaan waa kitaab ahayn qalad wanaag soo bixi karo laakiin nuxurka markaa u dhaadhaco waxaan rabaa ka hadla arrimaha week markaan ka hadlayo waxaan rabaa waxaa kaloo in aad iska taagtaan faraha ka qaadaan isu taagtaan xuquuqda aadanaha iyo asaaska dastuurka wuxuu leeyahay mabaadi'da u horeyso ee haweenku xusan yihiin qodobkaas waa la daciifsadaa oo qodobka sharaad ah oo ah inaan wax doorasho geli karno inaan sharci u leenahay saddexda tiiro dowladda si loo yareeyaa marka baarlamaanka joogno ama marka dowladda lagu dhex jiraa marka waxaan u baahannahay waxaa iga soo horjeeda saari maxamed axmed saaxiibtay sabiday oo dad badan noo samaysay gariiqaanida ah waxay ilaalinta ka mid yihiin hadda in hoos loo dhaadhaco oo xuquuqda aadanaha markii la galayo kuwa haweenka ah dulman iyo dhalinyarada inkasta Soomaalidu dulmanta in la helo xuquuqda aadanaha waxay sameynaysaa waxaa dastuurka koowaad waxay ku jirtaa qodobka koowaad 15 cutub waay waxa koowaad looga dhigo waxay ahayd ilaahay ayaa nasiix xaq ilaahay wuxuu ku siiyay waxay qofta waxay dhalaysaa iyadoo xor ah xuquuqdeedii ay leedahay marka shariicada islaamka ay ku fadhidaan marka arrintaas waxay keenaysaa in lagu dhowro qofka bini'aadamka ah oo ilaahay abuuray oo shakhsiga ah iyo muxuu ahaa wixii xiriira arrinta meesha taa waxay tahay in laga bilaabo sinaanta micnaheeda si kale markii loo fasiro waa qalad laakiin ilaahay xaggiisa iyo diinta xaggeeda sheekadeyda caashuugaasaa joogto ragga iyo dumarka ilaahay waa u siman yihiin dhaqanka diinta iyo habka wanaagsan oo muxuu ahaa loo isticmaalayo waa u siman yihiin marka arrintaas daraaddeed waxay u baahan tahay in muxuu ahaay dad looga fiirsado markaan sii guda galo aada ugu faraxsan horta soo dhaweynta badan oo loo soo dhaweynaya dadka wanaagsan loo yimaadeen waa ku mahadsan yihiin gabdhaha ka soo qayb galeen sida quruxda badan oo gobolka banaadir uga soo qayb galay iyo xaragadooda ismiciladooda gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ay gabar tahay basma aada ugu badan ay jawaahir waxaa waaye mashruuc waxaa jira laga dhexeeyo oo ah intii wax baratay oo jaamiciinta ah oo bachelor ah garaadkooda la kobcay waxay ka lagsan waxaa laga soo bilaabayaa sida hadda barnaamijka gobolka banaadir ka soo qaybto gabdhaha degmooyinka gabdhaha xaafadaha in iyagana ay bartaan xaqa ay leeyihiin oo weliba ah waqtigan kulul oo doorashada la galaya hadday u meemood ahaan lahayd kiugaas leeran ku heli laakiin lama heli karo haddana waa inay bartaan inay taageeraan oo doorashada ay waxayaan arrintaas ma aha inaan foori argumenta aan baxay waxay ka mid tahay dastuurka aan xaq u leenahay in la doorto annagana aan wax doorano marka waxaan jeclaan lahaa waqtiga waa caliili waa badan yihiin dad qurbaynayo dastuurka marka si fiican loo baaro oo si fiican loo baaro xuquuqda alle inoo dhow ku boqoran tahay laakiin haddii muxuu ahayd annaga nala barsiiyo annaga aanan baranin dhibka wuxuu ku imaanaa barasho la-aanta markii la barto oo qodobka salaystuntaan wuxuu yeelanayo qodob allaal qodobkii diinta kasoo horjeeda ku qoran ma jiro wixii dhamay diinta quseen haddana diinta dhexdeedii annaga nala ku dulmiyo oo toban magacna loo yeelo oo nala ku xadgudbo xaq ilaahay maaha wixii sameeyay iga hortooda ka helayaan أنا مرة بينا نقف حق شيء لكن سألك بيش أروح يتهاي قبل حجير كده المحد بكرة شخصيتي المحد بكرة شرفتي المحد بكرة حتى قبل تيالو وبريها بركر وأمريكا القرآن وأحش قدر
shaqada kale oo gabdhaha waa lagu guuleystaa dhibaatooyin badan ka dhaco oo aan loogeyn waa arkaysaa gabadha u dambeysay oo dabaqa laga tuur lahaa waxay shaqa lagu siinahay gabdhii jaamacaday u badan yihiin waa soo qalin jabsheen waxay u baahan yihiin inay wax shaqaystaan marka haddii lagu celiyo shukaansi ama lagu celiyo dhaqaale ama lagu celiyo shaqada ay meesha qabla dibkeeda noqonaya marka waxaan u baahanahay waa saan u sheegay waqtiga cariiri annaga aasaasiyaashii oo waxaan nahay qoyska tasuuqa hooye qoyska haddaan hooye jiro ma hayo nabi aadan ilaahay markuu abuuray xaawo u abuuray xaawo lagu abuuray in halkaa tarankiisii socdaan waa arrin diineen ah marka wax walbo culeyskeeda aan leedahay halkaa wada annaga ambiyadii iyo nabiyaasha keliyaana ka mid ahayd inta kaleeto owliyadaan ka mid nahay mashaa'iqdaan ka mid nahay waxaan rabaa inaan gabdhaha ku dooriyo inkastoo ay saaro hawshaas ku jirto in shareecada islaamka si fiican loo barto ma aha keliya inaan ka fiirin dhaxalka waxaan qaadanay laakiin shareecada lasii dhexgalo shareecada waxay caddaynaysaa inaan xor nahay oo waxaynaan xaq ku heli karno marka waxaan rabaa inaan intaada ku dhaafo hal arrimaan rabaa inaan xasuusiyo carta aniga waa joogay macaash waxaa la qaybinaya guraasta maalinta u dambeyso 5 kursi haweenka 25 haweenka la qaybinaya موقف حرش عنقل عليه واي وحين من شنط لو قاطع شنط أصله قاعدة هاي وحقسم كل جنيه هنا على كلا بصل 4.5 على القاعدة وكل جنيه سنة وحقه ليه وعمال ويترى عشرة إنكسر عمل حاجة أنا كسر ديني تعسير بحصل الله عنه حريسته قدرك عشرة هاي معلمتي بحصل إيه مدحوينها ودرتي فريدة أو عرفت تجي القرب يجوا جبوتي وكحل كوسين على الرسالة أو مراد بالله وسكول قفت كوها بوقتي وحكى كم بوقتي البوقف كده وحياة معاش لك عرفت أصبحت أنا العرس ولا جالسين بقول كوسيون الجرء هي يشيل لبعتك صوب بحرين وحكوها لنا كلام لح قدر كاس هذا كله راعي بدل لو استعمال وحر أنا عيل حسوسية فمعاش بس حمر اللي يمد طبيعي كاستقبلي سوته ما يجاسيه كراس أنا جاسيه ما يجي هذا هل كاس عودك كده بس عودك قبلك أنا قبل حق بلا توفيق وأما ستين أباوي في اسمه في على الله سمي قبل كبلاد إنه وكحنا ولا هذا قبله هذا